bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeen arbaco ay baxayso 19 bisha Sebtembar sanadka 2024 qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo mar kale ka dhacay gudaha Lebanon iyadoo mar kale la weeraray qalabka isgaarsiinta iyo agab kale oo isticmaalaysay Xisbullah macluumaad iyo faahfaahin dheeraad ah kaga haynaa dad ayaa ku dhintay tiro boqol ka badan oo ay ku dhaawacmeen waa sidee xaaladda shirkadda soo saartay inta badan qalabkan oo ay ku jireen nidaamkii isgaarsiinta ee shalay la qarxiyay wararka ay warbixino kale oo ay ku jiraan faahfaahin kaga haynaa weerar dhinaca dhulka Israel ee Syria ka fulisay oo hadda macluumaad dheeraad ah ay ka soo baxayaan Ruushka oo ka hadlay weerarada ka dhacaya Lebanon wuxuu ka yiri hogaamiyaha sare ee Iran wuxuu sheegay meeqa qof oo kale waa in la dilo ilaa madaxda Carabta xiriir ku jireen Israel dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman ayaa isaguna markiiba soo hadlay muxuu yiri qodobadaas iyo wararkii ugu dalkorona caalamka ay maqli doontaan mar kale soo dhawaada aan ku horeynay Lebanon ayaa ku jirta xaalad aan horey loo qiyaasin oo ka dhalanaysa agabka isgaarsiinta oo qaraxyo sameynaya mar kale ayaa magaalada Beirut iyo dhowr gobol oo ku yaala Lebanon waxaa ka dhacay qaraxyo dhowr ah kuwaas oo ka dhashay nidaamka isgaarsiinta aan lahayn wireless-ka lagu wada xiriiro iyadoo la sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixinay baahisay Al Jazeera qaraxyadan ayaa laga maqlay duleedka koonfureed ee Beirut iyo tiro ka mid ah gobolada Lebanon maalin kadib weerarkii baxsanaa oo lagu beegsaday aaladda isgaarsiinta Xisbullah oo kumanaan ka tirsan Xisbullah lagu dhaawacay tiro kalena ay ku dhinteen wakaaladda wararka ee Lebanon ayaana sheegtay tirada ku dhimatay inay hadda gaarayso 8 qof in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo wakaaladda wararka ee Lebanon inta ku dartay in qaraxyadan ay ka dhaceen deegaano ka tirsan dalka Lebanon ay ahaayeen kuwo aad u baxsan balse waxay saameyntooda ku hooseysaa kuwii shalay dhacay ee loo adeegsaday nidaamka batteriska oo isgaarsiin ahaan ay u adeegsanayeen Xisbullah qalabka maanta qarxaya waxa ka mid ah nidaamka xiriirka gacanta lagu qaatay ee aan lahayn wireless-ka waxa ku cusub ee kale oo maanta qarxaya ayaa ahayd in sidoo kale ay dhismayaal ku qarxeen solarka ama nidaamka tamarta cadceedda oo ku xirnaa dhismayaal dhowr oo ku yaalay koonfurta Beirut oo ay ku xooggan yihiin Xisbullah ayaa hadda loo arkay inay wajahayso mid ka mid ah marxaladii ugu adkeyd oo ka imaanaya tiknoolajiyadda ay adeegsanayso gaar ahaan nidaamkeeda xiriirka telefishinka Israel ka soo baxay Janaa 12 ayaa wuxuu sheegay in Israel inay mowjad labaad oo qaraxyo qalabka isgaarsiinta ee Lebanon la beegsatay shabakado kale oo ka tirsan Xisbullah halka shabakadda Mareykanka ee Axios-na ay sheegtay weerarkii maanta ka dhacay Lebanon waa wajigii labaad ee howlgalka sirdoonka Israel iyadoo shabakadan oo xiganaysa ilwareed ay sheegtay in weerarkan uu yahay howlgal kale oo ay ka dambeeyaan hay'adda sirdoonka Israel ee Mossad oo ka dhana shabakadaha isgaarsiinta ee Xisbullah arrintan ayaa muujinaysa in caqabad weyn ay la kulmayso Xisbullah saameynta ugu xun marka laga soo tago dhimashadii dhaawaca badan oo gaaray xubnaha Xisbullah iyo dadka xiriirka la lahaaba waxa hadda dhibaato weyn la kulmi kara nidaamka isgaarsiinta iyo habka xiriirka Xisbullah taas oo caqabad ku noqon karta howlgalada iyo dhaqdhaqaaqa uu ururkan sameynayay iyadoo warbixin Al Jazeera iyo shabakado dhowr ay baahiyeen galinka hore maanta waad ku maqasheen barnaamijkeena lagu sheegay in ujeedada ay Israel ka lahayd qarxinta nidaamkan isgaarsiinta iyo agabka kale ee maanta aan horey loo qiyaasay inay qarxay oo ay ku jiraan soolarada cadceedda iyo qalabka albaabada la iskaga furo iyo agab kale dhowr oo ay ka mid yihiin nidaamka gacanta lagu qaatay xiriirka oo inta badan hay'adaha ammaanka ay adeegsadaan warbixinada hore oo ila kala duwan laga soo xigtay ayaana lagu sheegay in Israel ay doonaysay in dhammaan qaraxyadan ay dhacaan haddii ay dhacdo weerar weyn oo iska horimaada ama dagaal toos ah oo ay la galaan Xisbullah laakiin hadda kadib markii xubno ka tirsan Xisbullah la sheegay inay ka shakiyeen isla markaana ay dareemeen in nidaamkooda isgaarsiinta lagu dhex jiro ama ay ku xiliyeen waxyaabo badqabkooda khatar ku ah ayaa waxa la sheegay in Israel ay ku rixday inay si degdeg ah howlgalkan u fuliso howlgalkan hadda ay fulinayaan hay'adda sirdoonka Israel ee Mossad ayaa noqonaya kiis ugu horeeyay noocan oo dunida ay wajahayso iyadoo horeyna loo diiwaan gelin weerar noocan la mid ah oo lagu qarxinayo nidaamka isgaarsiinta iyo shabakadaha kale ee xiriirka Israel ma aysan sameyn wax mucjiso ah balse waxa tan u fududeeyay shirkadaha iyo goobaha ay kala soo wareegaysay Xisbullah taas oo muujinaysa habacsanaanta ka jirta nidaamka wax iibsiga iyo la soo wareegista qalabka oo ay u dheer tahay inaysan Xisbullah haysan tiknoolajiyad ka xaqiijisa badqabka agabka ay isticmaalayaan sabab la xiriira in agabkan hadda qarxaya muddo ka badan 5 bilood ay gacanta ugu jireen Xisbullah wararka ka soo kordha Lebanon isha ayaanu ku hayn doonaa oo macluumaad falanqaynta iyo faafaynta ka soo baxda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena iyo tabinteena tooska ah ee baraha bulshada isla wararka la xiriira ayaan ku jirnaa aqalka Kremlin-ka ee looga taliyay Ruushka ayaa maanta war-saxaafadeed galinka daba soo saaray wuxuu sheegay in weerarka maanta lagu qaaday ururka Xisbullah iyo kii ka soo horeeyay shalayba kadib markii la qarxiyay nidaamka isgaarsiinta Xisbullah inay noqon karto mid horseedaysa iska horimaad ballaaran oo gobolka wuxuuna Ruushku ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo kuwa ka dambeeyay sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ay dhankeeda war-saxaafadeed soo saartay iyadoo sheegtay weerarka lagu qaaday aaladaha isgaarsiinta Xisbullah inay tahay fal dagaal oo dhan walba ujeedkuna uu yahay in dagaal weyne laga qarxiyo gobolka bariga dhexe haddaba iyadoo sida ay jirto ayaa waxa la isweydiinayaa
halka ay ku dambeysay shirkadii soo saartay qalabkan. Wargeyska Haaretz ee ka soo baxay Israel ee afka Cibraaniga ayaa warbixin u baahiyay wuxuu ku sheegay in shirkadda Taiwan ay farsamaysay qalabkii isgaarsiinta ee shalay ku qarxay Lubnaan ay xirtay dhammaan xafiisyadeeda, isla markaana waxaa hawada laga saaray nidaamkeeda xiriirka telefoonada sabab la xiriira inay ku bateen wicitaanka iyadoo la weydiinayay macluumaadka iyo hababka ay ugu soo gashay in ay gacan ka geystaan howlgalkan. walow ninka aasaasay shirkadda Apollo waa shirkadda laga leeyahay Taiwan oo qalabkan qaraxyada sameeyay magaceeda sitay uu maanta sheegay in shirkadiisa aysan wax lagu ku lahayn, isagoo markaa sheegay in shirkad kale ku taala Yurub gaar ahaan dalka Hungary oo shati u haysatay inay adeegsato magaca shirkaddan in ay qalabkan soo saartay. ilaa hadda ma jiro baaritaanka ay sheegtay inay sameynayso Hezbollah wax war oo ka soo baxay kadib markii shalay galinkii dambe markuu dhacay weerar lama filaan ahaa oo kumanaan qof ay ku dhaawacmeen in ka badan hadda 12 qofna ay dhimashadu marayso inay baaritaan ku sameynayaan isla markaana warbixin ka soo saari doonaan. ilaa hadda Hezbollah wax war kama soo saarin. markan Iran hogaamiyaha sare ee Iran Khamenei ayaa maanta wuxuu soo saaray hadal sida baahisay wakaaladda wararka Iran ee IRNA. hadalku soo saaray wuxuu ku sheegay meeqa qof oo kale waa in la dilo ilaa madaxda carabta ay xiriirka u jirayaan Israel, isagoo muuqda hadalkiisaas in uu farta ku gadayo dalalka Carabeed ee wali xiriirka la leh, iyadoo inta badan wadamada Carabeed ee ku hareeraysan Israel ay xiriir wanaagsan la leeyihiin. taasina waxay u fududeysay in howlgaladeeda ay ka fulinayso marinka Gaza ee xasuuqa aan wax fargelin aysan la kulmin ama wax cadaadis aan Israel la saarin si ay u joojiso. howlaha hadda la filayo inay wax walba isbedeli karaan sabab la xiriira howlgalka nidaamka isgaarsiinta Hezbollah lagu qarxiyay oo maalintii labaad sii soconaya, kaasoo khasaaro badan ay ka dhalatay. Hezbollahna ay sheegtay inay jawaab adag ka bixin doonto, iyadoo walaacu yahay in iskahorimaadyo gaara dhammaan gobolka in halkaasi ka dhalato. dhaxal sugaha boqorka Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa isaguna maanta hadal soo saaray, isagoo sheegay ma la samayn doono xiriir Israel ilaa ay buuxiso shuruudaha lagu dhisay dowladda Falastiin oo caasimadeedu tahay bariga Qudus. wuxuu intaa ku daray boqortooyadu ma joojin doonto dadaalka loogu jiro samaynta dowlad Falastiin, waxaan cambaaraynaynaa xadgudubka Israel ay ku hayso shacabka Falastiin sidoo sheegay. intaynu ka bixin isla Sacuudiga, shabakadda Al-Xataad ee fadhigeedu yahay Sacuudiga ayaa maanta soo saartay warbixin ay ku faahfaahinaysay howlgal ay ciidanka Israel ka fuliyeen gudaha Syria gaar ahaan bariga dalkaasi. hadda wakaaladdan fadhigeedu yahay dalka Sacuudiga ayaa warbixinteeda waxay ku sheegtay in 19 ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran lagu dilay in ka badan 150 kana lagu dhaawacay howlgalka ciidanka Israel ay ka fuliyeen bariga dalka Syria, taasoo ka dhalatay weerar halkaas ay ku qaadeen ciidamada Israel. Iran ayaa diiday in weerarada ay Israel ka fulisay Syria in wax khasaare ay ka soo gaareen ciidamadeeda. gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa cunaqabatay ku soo rogay 9 shirkadood oo ah shirkadaha qalabka difaaca militariga soo saara kadib markii qalab militari ay ka iibiyeen Taiwan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqday talaabadan maanta. talaabadan ayaa la sheegay in ku soo aadaysa iyadoo Shiinuhu sii wado cadaadiska ku haya Taiwan, wuxuuna dalbanaya in Washington ay joojiso taageerada ay siinayso Taiwan ayna ku doonayso inay madax banaani hesho, iyadoo Shiinaha uu qaaday talaabo uu ku cunaqabataynayo shirkadaha qalabka militariga ee Mareykanka. ayaa haddana Taiwan waxay shalay soo saartay warbixin ka dhan ah shirkadahaasi Mareykanka, iyadoo ku dhaleeceynaysa in qalabka militari iyo hubka loo keenay Taiwan inay ahaayeen hub daxalaystay oo aanan daryeel lahayn isla markaana shaqaynayn. tan oo ka dhalatay muddo 3 bilood oo la sheegay inay dekado ku xanibnaayeen isla markaana halkaasi ku daxalaysteen. shirkadaha Mareykanka ayaana weli ka jawaabin, balse Mareykanku wuxuu taageero weyn siiyaa Taiwan isagoo raadinaya inay Taiwan ka madax banaanaato Shiinaha, halka Shiinahan uu doonayo inay Taiwan qayb ka ahaato. barnaamijkeena habeenimo intaas nooga intaanu barnaamijka xiga haduu eebid ma ku kulmi doono. wararka warbixinada isla xilliga dhacayaan waxaad kala socon doontaa barahiga Facebook iyo Telegram oo ku heli kadib Iman Jaamac.